ku dhacay inflation wax maxaa sicir bar tuqeydii saameynta leedahay magac lahayd ee bulshada sida daacadda u kala qaban jirtay ee qabiilkooda u soo joogsan jireen inflation baa lagu riday boqolaal baa la iska tobanaan baa la sameeyay sultaan colaad foolxun ayaa ka soo cusboonaatay gobolka Dolo taasi oo sababtay dhimasho dad fara badan oo walaalo ah haddaba jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo jowxo ayaa ku eedeysay colaadaas inay sababtay maamul xumo fara badan iyadoo oo maamulka deegaanku uu xal u waayay colaadaha soo cusboonaadaya baryahan dambe hay'adda jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo nafti hore cadaani hirmoogi oo waraysi kula yeelanay istuudiyahana ayaa nooga warbixiyay colaadahaasi iyo sababaha ka dambeeya iyo waxa keenay in xal loo waayo afayene ku soo dhaw wakaalada wararka ogaadeen iyo ona afayene gobolka Dolo colaada ayaa ka soo cusboonaaday colaadahaas maxay yihiin bismillaah alxamdulillah aad baa ma santiin ugu horeyn jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya waxay dhawaaq dheer ugu diraysaa shacbiga Dolo reer xaaji akaahil colaada ka aloosan 3 sano u dambeysay deegaankaas ee aan ujeedo cilmi lahayn ee aan waxtar aakhira lahayn ee aan waxtar adduunyo lahayn ee dalkeena dad iyo duunyo iyo daltoona waxba u soo kordhinaynin ee khasaaraha ah in degdeg loo joojiyo dagaal aan wax cilmi ah ku dhisnayn oo dadkeena sahayanaya oo walaalnimadii sahayanaya oo aakhiradii iyo islaamnimadii sahayanaya oo mustaqbalka ummadda sahayanaya oo horumarka iyo horukaca iyo xooga iyo sharafta gobolka Dolo hoos u dhigaya weeye bilaa caleeg waxay jabhaddu ugu baaqaysaa in degdeg loo joojiyo waxgaradka wadaniyiinta dhalinyarada xubnaha jowxo taageerayaasha dadka saameynta leh salaadiinta iyo culimaa diinka aqoon-yahanka dhalinyarada gabdhaha deegaanka Dolo waxaan ugu baaqaynaa in colaadan gacan bir lagu qabto oo qalbi bir lagu qabto oo carab bir lagu qabto oo go'aan bir lagu joojiyo khasaaro dhan walba uu inoo leeyahay oo saameyn doona jiritaankeena iyo nolosheena iyo horukaceena iyo dhaqaalaheena iyo deegaankeena iyo xorriyadeena iyo ay ka talinteena iyo mustaqbalkeena baaqaasi jabhaddu diraysaa midda labaad ee su'aasha ah maxay ka dhalatay colaadani maamul xumay ka dhalatay maamulka dhulka dawladii hore EPRDF waxay isku murgisay dadkeena qolo walba meel waabtay tiri qolo walba meel qamadi ku sugay tiri qolo walba meel shaxaad ku sugay tiri dadkii waxa lagu dhaqaajiyay dhulkii waxa la kala qoqobtay wax dhul aan kala go'aynin dad aan kala go'aynin ya sababo siyaasi ah iyo sababo amni iyo sababo dhaqaale la isugu diray dawladdan NGO-ga ka kooban oo capacity u lahayn iyo karti xalisa khilaafaadka dhulka khilaafaadka muxuu ahaay qabaa'ilka khilaafaadka dhaqanka iyo dhiiga khilaafka ugu yar ee ka soo daahira meelaha ugu sahlan karti iyo tabar iyo go'aan iyo aragti iyo saameyn xallin karta ma ila therefore iyaduna waxay ku sii dartay buda caydin waxay ku sii dartay baasiin waa tii colaadani ay marar badan soo laba kaclaysay shacbiga deegaanka waxaan ugu baaqaynaa haddaan jooxanahay ma haysataan dawlad dhex jecel leh ma haysataan dawlad karti leh ma haysataan dawlad awood leh oo idin kala qabata ma haysataan dawlad dhulka iyo dadka iyo dhalashada iyo mustaqbalka idin madayn karta sidaa daraadeed billahi calaykum intaad go'aankiina gacantiina ku qabsanaysaan ee aad dawlad wadani ah oo dhex jecel leh oo ahlul bayt ah oo ahlul aqdi ah oo karti iyo aqoon iyo daacadnimo la idin imanayso hanaga khasaarina dhalinyarada hanaga khasaarina dhalashada hanaga khasaarina dhaqaalaha iyo bilaasha ku daadina dhiiga dhawaaqaasaan u diraynaa dagaalkan wuxuu ka dhashay maamul xumo waxa baasiin ku shubay maamul xumo waxa hakin waayay dawlad xumo iyo odayaal aan karti u lahayn inay arrimaha qaar joojiyaan sidaa daraadeed marxaladan hogaamiyaasha dhaqanka ee beesha iyo
madax ku sheega dawladuba aad bay u ceebaysan yihiin waxa dhacaya waayahay afhayeene inta taariikhda Soomaalida la sheego waxa la yiraahdaa heerkan reer Xaaji Makaahil horay oo ma dhicin inay iyaga dhaxdooda ay isdiriraan haddana waxa soo cusbanaatay bariyahan dambe inay welibana ay weerarradooda iyo dagaalada iyaga ka dhaxeeya ay dagaalada ay aad aan ugu wanaagsaneen taariikhda deegaanka ay noqdaan maxay tahay colaadan oo soo cusboonaysiiyay keligood maaha kontonkii sano u dambeysay xilligii colaadaha iyo khilaafka macna darrada ah iyo kala dilka shacabka iyo isqa qabsiga iyo niyad jabka iyo naca dadweynaha ka dhex abuurmay xilligu ugu sareeyay taariikhda maraya waa labo sababood sidaan u aragno shakhsiyan sidaan u arko waa labo sababood mid waa dhito ay diyaarisay taliska gumaysiga midda labaadna waa siyaasad ay horinaysay xukuumadda NGO-ga ee dawlad deegaanka ka dhisan oo aan u lahayn khibrad hogaamineed sida qabaa'ilada loo kala celiyo sida loo mideeyo sida khilaafaadka qabiilka loo xalliyo khibrad horena umayna lahayn daacadnimo dheeri ah oo lagu aaminana dadka kamayna dhex samaysan keligood reer Xaaji keliya ma magaalooyin aan weli dhanaan iyo goday weli iskuma dhicin 8 sano u dambeysay way kala bixilaayeen magaalada ogtahay Garbo iyo Dhagax Buur baa isugu dhow magaalooyinkeen eega dabka ma kala qaadanayaan birqod halka qoysay wada degan laamiga isuma talaabahay waxayna soo maray fi taariikh ma marka waa marxalad u baahan daraasad cilmi ah waa marxalad u baahan go'aan cilmi ah waa marxalad u baahan dawladnimo iyo wadaninimo iyo daraasad iyo daacadnimo in suntaas iyo kansarka wadaniyada iyo midnimada iyo dhalashada iyo isku xidhnaanta iyo wax wadaagida iyo jiritaanka ummadda lidka ku ah dawo lagu xalliyo oo wadani ah oo daacadnimo ah oo awood leh inay u timaado iyo u baahan tahay marka ma aha reer Xaaji Makaahil kaliya meelo aan weligood isqoomin baa isqoomay tirada isqoomida iyo isqabqabsiga intuu leeyahay weligii hadda ka hor kuma dhicin wadankeena waya maxay salka ku hayaan colaadaha waxay salka ku hayaan waa labada qodob aan ku sheegay siyaasadda dawladdu qayb weyn bay ka tahay siyaasadda dawladdii horena qayb weyn bay ka tahay waya waxaan kala rabaa inaan ku weydiiyo maxaa colaadahan diidaya in xal loo helo waa saan ku leeyahay dawlad NGO ka timid oo mashaariicda jigjiga iyo budget iyo ku mashquulsan oo aanu lahayn khibrad iyo karti shacabka iyo qabaa'ilka iskhilaafa iyo wadaniyad iyo daacadnimada aan lagu ogeyn meelaha qaarna iyagaaba baasin ku sii daray iyaga budacaydin ku sii daray meelaha kalena karti iyo khibrad iyo wadanimo iyo daacadnimo xalisayna lahayn therefore waxa kale hoos u dhacsan saameyntii madax dhaqameedkii duqeydii culimaa u diinkii saameyntoodii iyo daacadnimadoodii iyo kartidoodina hoos bay u dhacday sanadihii gumaysiga iyo koofiyad bacliyaashii laga sameeyay iyo si xun isticmaalkii iyo gacan hoorsiga ay barteen wuxuu meesha ka saaray creditkoodii iyo qiimihii ay bulshada u haysay iyo qadarintii ay bulshada u haysay iyo carabkooda iyo go'aankooda iyo niyadooda saameynta ay lahaan jirtay yaa meesha ka baxday koofiyad la iska xidhay noqotay waxay noqotay suldaamo ciida ka badan oo la iska magacaabo waxay noqotay ugaasi ciida ka badan oo la iska magacaabo oo lagu shaxaatagayo oo muxuu ahay lagu sacabinayo oo xisbiyo lagu taageerayo oo dana shakhsi ah iyo dana guraacan lagu raadinayo marka madax dhaqameedka saameyntiisii waxa ku dhacay inflation wax muxuu sicir bar duqeydii saameynta lahayd magac lahayd bulshada sida daacadda u kala qaban jirtay qabiilkooda u soo joogsan jireen inflation baa lagu riday boqolaal baa la iska 10 baa la sameeyay sultaan iyo 10 ugaas then iyagana waxa hoos u dhacay saameyntoodii
marka waxaa badanaya iskhilaafkoodii waxaa badanaya adeegsigooda iyo koofiyadu xidhka marka burburka dhaqan dhaqaale ayaa dadkeena ku dhacay burburkaasaa saameyn u leh in wiilka yar ee cadhaysan ama qoys yar oo nin ka maqan la cadhaysan qabashadiisu in la kari waayo waxa keenaya waa burbur madax dhaqameed iyo burbur siyaasi ah saameyntii dhaqanka ku lahaayeen reeraha dhexdoodii yaa hoos u dhacday saameyntii siyaasiga leadershipka siyaasigana quality-giisa iyo daacadnimadiisa iyo ahaanshaha dadka uu yahay baa iyadana meesha ka maqan